بسم الله الرحمن الرحيم النبض داود يا ليدي لهانتي بميل كستو اد كسوغنتيدين waa mar kale iyo barnaamijyadeena xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wacide ku soo dhawaada daawada yaal barnaamij gaar ah oo aan xog waran kala yeelanay musharaxa tagada madaxweyne ku xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo kulan ballaaran maanta la yeeshay safiirka ka socday dalkaasi Ingiriiska ee uu hogaaminayay safiirka Afrika oo qaabilsan dalkaasi Ingiriiska gaar ahaan geeska Afrika shirkaasi ayaa waxa uu ka qabsoomay hotel Mansour waxaanu shirkaasi u dhacay sida tan maanta ay xatahay halkan hotelkan Mansour waxaan loo kulanay wafdi heer sare oo ka socda safaaradda Ingiriiska ee magaalada Addis Ababa oo madax yahay ambassadorka waddanka Ingiriiska oo fadhiya halkan masarnin wafdiga ugu horeyso ama ambassadorka ugu horeyso socdaal ku yimaado Somaliland marka wuxuu ka wareysanayay oo uu doonayay inuu ogaado ra'yiga saabtu ka qabto sida wax u socdaan asiiba xagga commissionku sida wax u wadaan code of conduct kii lagu heshiiyay ama mu'ahadadii lagu heshiiyay sidii loo wadi lahaa inay sida u socoto in muxuu ahaayay doorashadii ay nabad u socoto waayo waxay safaaradooda ka wakiila wadannada Yurub ay ka mid ahayd dadkii la diyaar gareeyay lixda qodob ay ka mid ahaayeen aad baan ugu faraxsanahay in wariga ambassadorku uu yimaado oo hawshaasi muxuu si fiican ula socdo taasi taa weeyaan marka waxaan aad ugu faraxsanahay annaka xagga reer cud hadaan nahay waxaan had iyo jeer aanu ku dadaalnaa marka hawlahaas oo kala imanayaan inay dadka reer cud dibadda gudaba jooga iyo dhalinyarada iyo muxuu ahaayay inay ka soo wada qayb galaan marka waxaan ku faanahay waftigii muxuu ahaayay reer cud madaxda ka ahaa ee la kulmay safaaraddu wafdigan ka yimi Ingiriiska ka yimi inay ku jiray ninka ololaha loo qaabilsan Saleebaan inuu joogay xogayaha guud ee xisbiga muxuu ahaayay Muuse inuu joogay afayeenka xisbiga Xasan Xuseen inay joogtay muxuu ahaayay Kawsar iyo Maxamed iyo Cabdinaasir oo iyaguna dhalinyarada muxuu ahaa iyo ugu dambeyntii gabadha loo qaabilsan xagga dibadda Fatima Madar oo runtii iyaduna dhaqaatay timiba marka waxaan aad ugu faraxsanahay iyo muxuu ahaayay Asad oo isaguna muxuu ahaayay London ka yimid marka waxa aad ugu wanaagsanayd inay dadkana kana taageeray dibadda ka yimid inay joogeen dadkii iyagii halkan sii joogeen inay joogeen marka aaraada la isweydaarsaday oo aad interesting u ahayd yani aad u qurux badnayd in aad iyo aad aan uga qayb galay muxuu ahaayay wixii annagu aan doonaynay haddaan nahay xisbiga iyo mustaqbalka waxaan u arkaynana aan aad uga hadalay safaaradda muxuu ahaayay safiirka iyo wafdigiisa la socdaana waxay talooyin lagu kordhiyeen ay nagu kordhiyeen kulle waxaan hubaa in wada hadalka iyagii
وكل ما ليس آدي وناكسر وهير سراء وقدرسة وآدي هذا قربان وحنا آدي فرحسنا هنا ولي وطننا دي يورو نرد يعني تاجر دي أي وضان وأي نجوا خيال وحنا كل جيل نحن رجينا لو كمان الموضوع كهذا أما لبض ويا كهذا ترشد سوى ناكسر الأمر هذا أنت كجبحه أنا كمان أنت أن نصوب حين نوحكتي مالمي هراء نصوب حين وبريتو ومالوين waayo waxaan doonaynaa xoog inaan muxuu ahaa looga soo baxo magaalada Hargeysa hawshanida ugu weyn waxay ka bixi doontaa magaalada Hargeysa Barrito waayo waxa imanaya gudoomiyihii xisbiga murashaxii madaxweynaha xisbiga Wacd Injineer Faysal Al-Waraabe ayaa Barrito iman doona oo ka hadli doona muxuu ahaa Hargeysa beerta xorriyadda marka waxaan dadkana ka codsanaynaa inay xoog soo baxaan Barrito waayo waxa maalmihii ugu dambeeyay لموجيني قلوا والبطاقة روحة أي بتوعها وحي سطو وحنا دوق فرحنا إن شاء الله يوكله الحمد لله يعني حافظها وجمي بتاعنا حافظها وجمي مسكوا كملة الموضوع بحين إن شاء الله تو تاجر أي قصة ترسمين حسب الجمهور تاجر بدنا يسيين دمر إيا دمير إيا وعيان إيا علمه إيا قيب قصة كملة الحال بالشر هذا حنا نقول فرحنا مركها Hargeysa أنكم كل يوم وحنا ماشي أنو دوني نفوت كي يبغوا بطو ويوم هو كونستيتوينسي هو إنجنير فيصل Al-Waraabe تقول سلاسين نوموجين وحنا مركها فلنا إن صباح Barrito أن جعل Hargeysa إن السنوجستان وأفغانستان بلنقات كي هاينا أبتهين حسب الوعد وأظن وجنا سنة مدحوينها صوص على Somaliland إنه كصوبحه هل كان ويكون قيد وين أتقالتان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحنا ما بسالك سلام يا دولة الصومالية كسوة شوغانبا بداية دبا مرحبا وحنا مشاغين يا بيتولي إن نحن برنامجي من هذه المهمة إسلام كان وقصون عندنا مشكلة حوينا إنجنير فيصل Al-Waraabe وكل من يضري ونسوق على دون إن شاء الله بيته الصبح وكقط بدين دونه بيت حريته أسوأ الوجين إن دمان تيم هذا رياش حسبنا أي سوي معدن بيت حريته وتقبل الصبح المتشوجان سعن وبلعبنا سديد الصبح لما قد بدأ مشرحة مدحوينها هدي إلهي وإلهي نجاسي إن شاء الله وحن شعلنا رح كل النو إن عبد ذلك النو إن عبد كعيد إن شاء الله أن تسمع هاجرنا أي وحينو إن مشرحة يوم ليكيسا إن فيصل Al-Waraabe محمد الشيخ وعيكيسا أن تسمع بيتولي إن طبعا حسبي كلامه أن نكون إنه حق الدبيني إن شاء الله نسمع بيتولي وحن ما كنت عن سمعتين هاجرياشة إن نسمع بحضان بيتولي بيتولي تدور الصباح نمو وإن كسر دوينه مشرحينا في Injineer Faysal Al-Waraabe. السلام عليكم.